senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa ka hadlay howlgal maanta ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho isagoo warbaahinta kula hadlayay guriga maanta ciidamada howlgalka ka sameeyeen ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay amar la'aan galeen gurigiisa. Cabdi qaybdiid ayaa sheegay in gurigiisa la burburiyay oo albaabada xoog looga jabiyay. Waxa kale oo uu sheegay in ciidamada maanta galay gurigiisa ay jir dileen mid kamid ilaaladiisa oo xilligaasi ku sugnaa gurigiisa, waxaana uu ku tilmaamay falkan mid sharci darro ah. gurigayga oo aan deganahay ayaa waxaa soo maanta weeraray ciidan ka socda ciidan dawladeed. albaabka hore ayay baabuurka ku soo jabsheen ganjeelka, kadibna waardiyihii bay qoryo ku qabteen, qoryihiina ka qaateen. aniguna shaqaan ku maqnaa golaha aqalka saraan jiray. waxaa loo soo galay gudaha ayaa loo soo galay. markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha, waa la baaray, waa la jebiyey dhammaan albaabada, meel walbana way galeen, armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray. qolalkii guriga dibadda bannaanka qolalkii dibadda ku yiri iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way hansaab gareeyeen. taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen. xaaskii oo masqusha ku jirtana masqushii ay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi. baaris kadib hadda intaasi markay dhacday, anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen. anigu ma garan kara ilaa hadda. cidda waxaan samaysana informationkii ugu horreeyey xaaskayga markay soo wacda kadib waxay soo wacay ninka taliyaha nabad sugidda ka ah gobolka Banaadir oo la yidhaahdo Saadiq. wuxuu ii sheegay ciidankaasi waxay ahaayeen ciidan laga soo diray ciidanka Imaaraadka ayay ahaayeen ayuu yiri. laakiin waxaan anigu caddaynayaa sida ninkaasi ii sheegay ciidankaas ciidan dawladeed buu ahaa. falkaasi markii uu soo ifbaxay waxaa sidoo kale war qoraal ah ka soo saaray arrintan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu amar ku bixiyay in la soo qabto dadkii ka dambeeyay weerarkii maanta lagu qaaday guriga senator Cabdi qaybdiid. madaxweynaha ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ku amray in uu baaritaan degdeg ah ku sameeyo cidda weerartay guriga Cabdi qaybdiid. taliyaha ciidanka xoogga dalka Gorod ayaa isla markiiba qaaday tallaabo ku aadan arrintii loo xilsaaray, waxaana taliyaha uu xabsiga u taxaabay ilaa iyo 40 askari oo ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday guriga senator Cabdi qaybdiid. taliyaha ayaa sidoo kale xabsiga dhigay 2 sargaal oo kale oo iyana arrintaasi lala xiriirinayo, waxaana sidoo kale jira baaritaano ku soconaya saraakiil kale oo lagu tuumayo in ay ku lug lahaayeen weerarkii maanta lagu qaaday hoyga senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid. Maxamed Yaxya Jiino, SAB TV, Muqdisho.